waxaan wax idinkugu soo gudbinayaa walaalayaal ma ahan inaan idinka cilmi iyo aqoon badanahay balse qofka idinkugu liita qofka ka sii liita ayaan ahay waxa igu qasbayna waxay tahay xadiiskii nabiga ee ahaa sallallahu alayhi wasallam ballighu anni walaw aayah dadka diinta hala gaarsiiyo hal aayad ba ha ahaatee in wanaaga la isfaraa xumaantana la iska reebaa waxay ka mid tahay sifaatul mu'miniin waxaan jeclahay inaan wax yar ka hadlo mowduuc yar oo ku saabsan nolosha qabriga ama xayaatul barzakh sidaan wada ognahay walaalayaal noloshan adduunka ee aan ku wada sugannahay ma jiro qof ku waaraaya qof walba naga midaana wuxuu ka cabi doonaa koobka geerida meel kastuu joogaba ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kitaabkiisa ku leeyahay aynamaa takuunuu yudrikkumul mawt meel walbood joogtaanba way idin haleeli geeridu walow kuntum fii buruujin mushayadah aad dhex ahaataan badaaro dheerdheer oo la adkeeyey marka barzakh ama qabrigu waa shay kala teeda ama u dhaxeeya laba shay qabrigu wuxuu u dhaxeeyaa noloshii adduunka iyo noloshii aakhirada ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay xataa idaa jaa axadahumul mawt markay u timaado midkood geerida waa mushrikiinta wuxuu leeyahay qaala rabbi irjicuun rabbiyow dib ii celi dib haddii loo celiyo xumaantii ku laabana miyuu leeyahay maya wallaahi wuxuu leeyahay lacallii acmalu saalixan fii maa tarakt waxaa laga yaabaa inaan camal wanaagsan soo qabto wixii aan ka tegay ee rabbiyow dib ii celi حبيبتان إلا الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان إلهي أصنبه أجوابه وحوير كلا مية أو لغا يابو إنها كلمة كلمة وكلمة وقائلها أو اسكيرؤون ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون قداش ودنا وحا برزخ إلى إيمال انت لك سو سارايو مركا ولا ليال خبري واميل آدي آد ربات بدن واميل آدي آد عرير بدن واميل مقدي أبر صحيفة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله qofka markii qabriga la geliyo sidaas laguma sii daynayo ee waa la imtixaanaya qofkii imtixaankaas ku baasaa nolosha dambana wuu ku guuleysan doonaa insha Allah qofkii laakiin imtixaankaas ku baasi waaya waxaa u sugnaatay hoog iyo halaag iyo shalayto qabriga waa laba midkood qofka mu'minka oo awaamirta Ilaahay qaatay oo rabbigiis aan ku caasinin wuxuu u yahay qabriga rawdah min riyaadil jannah beer kamida beeraha jannada laakiin qofka caasiga ah wuxuu u yahay qabriga god kamida godadka naarta subhanallah خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان qofka markay nafta ka baxdo oo qabrigiisa la geeyo isla markii dib nafta loogu soo celiyo waana la soo fariisinaya qofkii waxa uu imaanaya labadii malag ee aad wada taqaaniin munkar iyo nakiir su'aalaha ay weydiinayaan qof walba la weydiin lahaa markaas waxa uu leeyahay mar rabbuk rabbigaagu waa kee ruuxdii wanaagsan waxay leedahay rabbi allah rabbigaygu waa allah waayo allah way taqaan adduunkii ay ku caabuday awaamirtiisa ay qaadatay xanta iyo xumaanta ay iska ilaalisay dariskeedii ayaa ka nabad galay xijaabkeedii ay qaadatay jirkeedii ay asturtay waxay leedahay rabbi allah rabbigaygu waa allah oo diinteedu waa islaam oo nabigaygu waa muhammad sallallahu alayhi wasallam su'aal walbo la weydiiyay ka jawaabaysa allahu akbar markaas alla weyna ayaa samada uga dhawaaqaya waxa loo leeyahay an sadaqa abdi adoomadeydii run bay sheegtay fa afrishuhu min aljanna allahu akbar jannada gogol iyo firaash uga dhiga waftahu lahu baaban ila aljanna albaab xagga jannada ka ahaadana u fura wa albisuhu min aljanna dharka jannadana u xira allahu akbar qof nasiib leh ayuun baa hela markaas waxaa loo waasicinaya qabrigiisii inta ishiisa ay qabato noloshaas quruxda
sharafta iyo nimcada badan ayay ku jiraysaa ruuxdaas wanaagsan ilaa maa laga gaaro maalinta qiyaamo. في الميزان سبحان الله وبحمده. laakiin gabadhii rabbigeeda ku caasisay, xijaabka qaada laga kari waayey, xanta iska dhaaf laga kari waayey, markii qabriga la geeyo ee nafta dib loogu soo celiyo, su'aalaha marka la weydiiyo waxay leedahay laa adrii, ma aqaano. ma taqaano waa sax, awaamirta ilaahay way ku caasisay markay adduunka joogtay, hadalka ilaahay maysan qaadanin. ilaahay asna wuu garab marinaya su'aalaha jawaabahooda. waxay leedahay laa adrii, ma aqaano. su'aal walba la weydiiyo waxay leedahay laa adrii. alla ayaa samada ugu dhawaaqaya ayadana wuxuu leeyahay an kadaba cabdii, subxaan allah, addoomadeydii been bay sheegtay, addoonkeygii been buu sheegay. gogol iyo firaash uga dhiga naarta, albaab xagga naarta ka ahaadana u fura, dharka naartana u xira, subxaan allah. markaasaa qabrigii ayaa lagu ciriirinayaa ilaa maa feerihiisii ay isdhex galaan, tii bidix jirtana ay midig imaato, tii midig jirtana ay bidix imaato. feerihiisii ayaa isdhaafaya qabriga ciriiriga looga dhigay dartiis. سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. noloshaas cadibaada dulaysan ah ayay ku jiraysaa ilaa maa laga gaaro maalinta qiyaamo. ayadana qabrigu imaa waa inuu kuu noqdaa beer ka mida beeraha jannada, ama inuu kuu noqdaa god ka mida godadka naarta. wax ka dhexeeya ma lahan. walaalayaal, waxaan nafteeda iyo nafafyaashiinaba u dardaarmayaa in aan ku dadaalno camalka wanaagsan samayntiisa, nafafyaasheena aan tarbiyeeno walaalayaal. waayo nafta ma jeclo wanaagga runta marka laga hadlo. ina nafsa la ammaaratun bisuu, naftu waa mid farid badan xumaanta. naftaada maanta kuma dhehayso heblaayay istaag ee salaada duko, heblaayay lacaga haysataa ee sadaqa baxso, soon maanta waa khamiise, saan sameey, wanaaggaan sameey, maxaa kugu dhacay. lagama yaabo naftaada inay ku dhahdo, laakiin taas cagsigeeda ay ku leedahay. gabar yaraa tahay, dhalinyaraa tahay, maxaa isku dadejinaysaa, waa toobad keenaysaa, 60 sano gaar, intaas sano gaar, naftaada yaa garantii kuu siiyey ilaa waqtigaa doontid aad noolaanaysid. maya wallaahi, isxisaabi marka walaalayaal inta aan lagu xisaabin. سبحان الله وبحمده. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri alkayisu man daana nafsahu wa amila lima ba'da almawt. qofka caqliga badan oo fariidka ah waa ka naftiisa xisaabiya, geerida gadaasheedana u shaqaysta. سبحان الله العظيم